badan ayaa aaminsan in gabadha oo la hantiya ay bilaaw iyo dhamaadba u tahay furayaasha guusha iyo waarida nolosha qoysnimo marka ay sida ragga qaar u fikirayaan waxaad moodaa inay iska indhatirayaan xaqiiqda ah in guurku uu yahay heshiis laba dhinac ah oo ku dhisan wax isdhaafsi iyo in mid kasta oo ka mid ah lamaanaha uu leeyahay doonis iyo wax uu kan kale ka filanayo taas oo haddii la helo wax badan ka qabanaysa in xiriirka qoysnimo uu waaro maanta waxaan idinla wadaagayaa dhowr qodob oo qaar ka mid ah ay tahay furaha u noqon doonta guriga iyo in ay rag walba fahmaan xaasaskooda dareensiin in ay tahay qof la jecel yahay waa dabeecadda dumarka oo dhami wadaagaan gabar kasta waxay doonaysaa in ay dareento jacaylka loo qabo ilaa heerkee oo sigeeda kalgacal u haayo haddaba dhibaatada waxay tahay in rag badan ay xitaa ku fashilmaan in ay fariin yar oo waan ku jeclahay ah u diraan xaasaskooda laakiin waxa ay moog yihiin in fariintan yar kaligeed daboolayso baahiyo badan oo ay gabadhu qabto is-afiska iyo dulqaadka sinaba kuma waari karo guri aan tiir looga dhigin is-afis iyo isku dulqaadasho dhex taala lamaanaha isqaba waxaa muhiim ah in uu sayga fahmo in aanu jirin aadamo dhammaystiran xaaskiisuna ay tahay aadami mar walba waa inuu ku dadaalo cafiska iyo iska indhatirida qaladaadkeeda yaryar sheeko iyo hasaawo waa caado jirta in marka ay lamaanuhu muddo isqabaan ay ilaabaan habkii sheeko iyo hasaawo oo xiisaha lahaa oo horaantii oo midkooda midka kale ku soo jiidan jiray waxaa la arkaa sheekadooda oo noqota mid daal iyo niyad-jab un keenaysa laakiin khatarta jirta waxa ay tahay in marka xaalku halkaa gaaro la filin karo burbur iyo nacayb soo dhexgala qoyska ragga ayaa inta badan dhibaatadaasi ka timaadaa oo xilliga ay xaaska isku cusub yihiin sheeko iyo hasaawo xiiso badan bara hadhowna ka daala oo aan xiisaynin xataa ay si fiican ugu wada hadlaynin arrimaha danta gurigooda sidaa awgeed khubarada xiriirka bulshada waxa ay kula talinayaan in sayga markoo la fadhiyo xaaskiisa aan ugu sheekeynin shaqada xaaladda cimilada dhacdooyinka siyaasiga iyo wixii la mid ah balse uu xaaskiisa ugu bilaabo sheeko iyo hasaabo ku saabsan xiriirkooda iyo gurigooda ama naftooda iyo in mararka qaarkood uu soo xasuusiyo qisaskii xiisaha lahaa ee bilowga xiriirkooda sida inuu ugu sheekeeyo waayahoodii dhalinyarnimo ee quruxda badnaa ayada ayaa kaa mudan ragga badan ayaa caado ka dhigta in xaaskooda ay ugu sheekeeyaan shaqadooda iyo duruufahooda shaqsiga ah ama hibaayadahooda oo keliya tani waxay gabadha ku beeri kartaa ciriiri inay u qaadato dareen ah in iyada ubadkeedu ay darajada labaad yihiin danaynta ninkeeda ninku waa inuu xaaskiisa iyo ubadkiisaba dareensiiyaa in ay yihiin kuwa ugu mudan fikirkiisa iyo danayntiisaba